waxbartaan 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 barwaaqo gaarane insha Allah marka maanta waxaan rabaa inaan soo jeediyo ama uu noo bilowdo cashiradeena caadiga ahaa oo ku saabsanaa technology secondary form 3 oo reference book insha Allah marka sida caadiga ah unityada aan baran doono marka waxaa kamid ah ama buugga marka maaragtay wuxuu ka hadlaa waxaa loogu talagalay ardayga inuu ka caawiyo inuu fahmo marka waa environmentiga oo la yiraahdo ICT marka oo si marka maaragtay hordhac ahaan oo u barto iyadoo marka maaragtay ardayga awood uu u lahaanayo mar alaal marka maaragtay course-ka uu dhamaado kadib inuu markaasoo network maxaa la yiraahdaa computer network qaabka u shaqeeya sidoo kale network mar alaal markii maaragtay la abuurayo maxaa asaas ah oo marka sal u ah oo loo baahan yahay in markaas maaragtay qofka userka ah ama businesska inay markaas maaragtay soo iibsadaan marka sidoo kale waxyaabaha marka oo qodobka labaad oo noo noqon doona marka waxaa kamid ah waxaan ka hadli doonaa marka waa computer application marka ama unitka labaad wuxuu noo noqon doonaa computer application ka mar alaal markaan ka hadlayno there is a lot of applications oo halkaas maaragtay available ah marka sida wordka kamid ah excelka kamid ah accesska kamid ah marka insha Allah marka buugga si hordhac ahaan marka waxaan arki doonaa powerpoint-iga bismillah insha Allah marka maanta waxaan rabaa inaan soo jeediyo ama uu noo bilowdo cashiradeena caadiga ahaa oo ku saabsanaa technology secondary form 3 oo reference book insha Allah marka sida caadiga ah unityada aan baran doono marka waxaa kamid ah ama buugga marka maaragtay wuxuu ka hadlaa waxaa loogu talagalay ardayga inuu ka caawiyo inuu fahmo marka waa environmentiga oo la yiraahdo ICT marka oo si marka maaragtay hordhac ahaan oo u barto iyadoo marka maaragtay ardayga awood uu u lahaanayo mar alaal marka maaragtay course-ka uu dhamaado kadib inuu markaasoo network maxaa la yiraahdaa computer network qaabka u shaqeeya sidoo kale network mar alaal markii maaragtay la abuurayo maxaa asaas ah oo marka sal u ah oo loo baahan yahay in markaas maaragtay qofka userka ah ama businesska inay markaas maaragtay soo iibsadaan marka sidoo kale waxyaabaha marka oo qodobka labaad oo noo noqon doona marka waxaa kamid ah waxaan ka hadli doonaa marka waa computer application marka ama unitka labaad wuxuu noo noqon doonaa computer application ka mar alaal markaan ka hadlayno there is a lot of applications oo halkaas maaragtay available ah marka sida wordka kamid ah excelka kamid ah accesska kamid ah marka insha Allah marka buugga si hordhac ahaan marka waxaan arki doonaa powerpoint-iga qaabkay marka maaragtay GUI-gaas ama graphical user interface-ka marka maaragtay loo isticmaala marka anigoo markaas maaragtay a lot of some presentation aan samayn doono anigoo ku base garaynayno marka maaragtay stepska iyo sidoo kale formatka markaas oo powerpoint-iga u gaarka ah uu leeyahay marka sidoo kalena marka unitka saddexaad marka waxaan ku arki doonaa wax la yiraahdo web development marka ama web application marka insha Allah aan ku arki doono iyadoo marka la isticmaalayo luqad la yiraahdo maaragtay HTML marka hypertext transfer markup language marka unitka ugu dambeeyana marka waxaan ku baran doonaa marka abstraction and algorithm aan ku soo gabagabeynayna marka insha Allah unityadaasna marka unit walba mar alaal marka maaragtay aan bilowno wuxuu leeyahay cashiro oo markaas oo unitka markaas maaragtay hoos imaanayo marka insha Allah marka unit walba markaan gaarnaa marka si deep ah qutar dheer leh
aan ugu hadli doonaa haddii la idmo maanta marka insha Allah marka waxaan noo bilaabanayaa marka unitkii koowaad waxaan ku hormaraynaa marka introduction to computer network marka unitkii koowaad طبعا sida caadiga ah wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 3 cashir uu leeyahay cashirka koowaad oo kale waxaan arkaynaa hordhac ku saabsan computer network marka cashirka labaadna waxaan ku arki doonaa haddii hordhici marka maaragtay network maxaa la yiraahdaa network qaabku u shaqeeya haddii marka maaragtay aan soo barano kadib waxaan u baahanahay marka aaladihii network loo isticmaalayo haddana inaan marka maaragtay wax aan ka aragno marka cashirkii labaad marka wuxuu ka hadlaa network devices marka aaladihii network loo isticmaalayay sidoo kale fiilooyinkii network loo isticmaalayay iyo sidoo kale protocolada oo markaas maaragtay network uu leeyahay marka ugu dambeyn marka unitka koowaad cashirka ugu dambeeyo marka waxaan ku arki doonaa network topology marka waayo qofka userka ah hadiiba marka maaragtay network maxaa la yiraahdaa maxaa loo isticmaalaa qaabku u shaqeeyaa meeqa nooc uu ka kooban yahay intaan bahduu marka waa full concept uu ka soo qaato wuxuu u baahan yahay haddana fiilooyinkii aaladihii wixii loo isticmaali lahaa haddana hal cashir inuu markaas maaragtay uu barto ugu dambeyn marka waxaan kusoo gabagabeynaynaa network qaab dhismeedkiisa marka qaabkee marka maaragtay loo xiri karaa marka ilaa iyo marka dhowr nooc oo u xirmaa network insha Allah marka cashirka saddexaad aan ku arki doonaa haddii la idmo marka unit walba markaan gaarno cashir walba si deeply aan uga hadli doonaa haddii la idmo marka insha Allah marka unitkeena koowaad intaas uu ka kooban yahay marka insha Allah marka waxaan ku bilaabaa marka cashirkii koowaad aan oo bilaabo doono cashirka koowaad cashirka koowaad sida caadiga objectiveska ahdaafta marka cashirka marka uu noo dhamaado kadib aan gaari karno marka waxaa ka mid ah the definition of the network maxaa la yiraahdaa inaan markaas maaragtay aan baranno sidoo kalena inaan aragno inaan markaas maaragtay aan sharxi karno faa'iidooyinka uu leeyahay network marka waayo network marka maaragtay maxaa la yiraahdaa qaabku u shaqeeya intaas banaa marka waa qofka userka hadduu sameeyo just waa faa'iido uu leeyahay marka halkaas ay marka maaragtay ay ka soo bixay marka sidoo kalena marka waa qodobkeena saddexaad wuxuu noqon doonaa noocyinka uu leeyahay network waa differentiate aan ku sameeynaa marka iyadoo marka maaragtay aan u kala dhigayno ilaa iyo dhowr category-ga uu leeyahay network marka sida LAN iyo MAN iyo WAN iyo BAN marka insha Allah marka waa maxaa laga soo gaabiyay LAN iyo WAN iyo marka maaragtay MAN iyo BAN waan arkayna marka waa halaalan aan u gali doonaa qodobkeena kale marka waa waxyaabaha ku arki doona marka cashirka waxaa ka mid ah network aaladaha network marka baahida keentay iyo marka aalad walba aaladaha kale markaas maaragtay loo baahan yahay inay la shaqeyso marka insha Allah aan ku arkaynaa sidoo kalena noocyinka kala duwan oo markaas oo network isticmaalayo sida fiilooyinkan arki doonaa haddii la idmo oo explain marka maaragtay aan ku sameynaynaa sidoo kalena cashirka markuu dhamaado kadib qofka ardayga waxyaabaha marka maaragtay awoodda u lahaanayo marka waxaa ka mid ah the various network protocol inuu markaas maaragtay full concept uu ka qaato marka ugu dambeyn marka maaragtay network topology inuu markaas maaragtay oo dhisi karo qofka ardayga marka insha Allah cashirka markuu noo dhamaado kadib insha Allah cashirkeena koowaad marka wuxuu ku saabsan yahay hordhac ku saabsan computer network marka waxaan ku bilaabeynaa waa history of the network marka bal aan aragno taariikhda oo markaas maaragtay oo soo maray network marka network ka horta marka maaragtay haddaan dib aan u eegno 60kiina marka waxaa marka maaragtay la isticmaalayo telephone network wax la yiraahdo marka dunida caanka ah oo kaasoo marka telephone networkaas oo isku xiraayay marka maaragtay dunida oo marka maaragtay country to country city to city oo communication ka marka inta kadib
waayo marka maaragtay waa telefoonka wuxuu isticmaalaya marka waa circuit switch wax la yiraahdo circuit switchkaasna wuxuu marka maaragtay u fududeynayay in warbixintii loo gudbiyo qofka marka maaragtay senderka iyo receiverka marka waxa laga wadaa marka waa qofka markaas maaragtay isticmaalayo device-kaas oo ku xiran marka shabakadii telefoonka ku xiran oo marka maaragtay data-diina waxay ka imaanaysay from sender to receiver ay u gudbaysay marka intaana marka waxaa marka fududeynaya wax la yiraahdo circuit switching marka waxayna u dhaxaysay marka data-daas wareegeedana marka waxay u dhaxaysay laba aaladood ay u dhaxaysay marka oo waayo aalad waxay ahayd waa source-gii ay ka imaanaysay aaladna marka waxay ahayd waa destination-kii oo markaas maaragtay signal-kii marka maaragtay oo receive gareynayo uu helayay marka intaa kadib marka waxaa marka maaragtay ninka la yiraahdo Leonard 1961 wuxuu marka maaragtay keenay fikrad ah oo ARPANET marka ARPANET-na marka waxaa laga soo gaabiyay waa Advanced Research Project Agency Network marka fikradaas uu keenay fikradaas marka uu keenay kadib waa 61 ay ahayd intaa kadib marka waxaa lagu sameeyay development waayo fikradii marka waxay noqotay fikrad markaas xilligaas baahideeda ay taagan tahay marka oo loo baahan yahay in marka maaragtay laga faa'iideysto marka okay intaa kadib waa development lagu sameeyay marka waa ARPANET marka waxaa lagu sameeyay development xoogaa marka waa la hormariyay marka maaragtay shabakadii markii la hormariyay kadib waxaa la sameeyay marka tijaabo la sameeyay tijaabadu marka waxaa lagu sameeyay marka jaamacad iyo institution marka jaamacad la yiraahdo University of California iyo sidoo kale macad la yiraahdo marka waa Stanford Research Institute marka labadaas marka institutionka marka waxaa lagu sameeyay testing oo waayo aaladaha halkaas laga isticmaalayo marka si officially la isku xiray iyadoo la isticmaalayo adeegan la yiraahdo ARPANET marka oo xilligaasna marka waxay ahayd marka waa 1969 kii ahayd marka okay inta kadib marka waa 69 kii kadib mar alaal markii labadii marka maaragtay institution sida jaamacadda marka waa University of California iyo macadkii marka labadii node halkaas marka maaragtay si official oo marka maaragtay marka alaal markii la testgareeyay kadib marka intaa kadib marka waxaa imaaday wax la yiraahdo internetka marka si official waxaa loo bilaabay 29 October marka 29 October 1969 xilligaas uu bilaawday xilligaasna marka waxay ahayd waa data transfer-ka ugu horeeyo oo markaas maaragtay u dhaxeynayo oo macadkii iyo jaamacaddii marka dhamaadka 70kiina marka waa 200 host marka waxaa ku xirmay ARPANET marka waa ARPANET-kii marka wuxuu noqday mid caan ah oo loo baahan yahay marka maaragtay loo baahan yahay sida jaamacadihii ay u baahan yihiin sidoo kalena iskuuladiina ay u baahan yihiin marka waxaa lagu tijaabiyay marka 200 oo hosti in markaas lagu xiro ARPANET marka dhamaadkii marka waa 1980kiina marka waa public network marka maaragtay lagu xiray adeegii marka marka public network markii lagu xirayna waa in ka badan 100,000 oo marka maaragtay aaladood ku xirmay marka magaciina marka waxaa loo bixiyay marka waa internet loo bixiyay ilaa iyo maantana marka maaragtay waa adeega markaas oo dunidoo dhan oo markaas maaragtay aaladaha laga isticmaalayo oo shabakada oo dhammaan aaladahaas oo mideynayso oo communication linkiga markaas maaragtay noo fududeynayso marka internetka marka waxaan dhihi karnaa waa worldwide connection marka oo network marka waana diiwaanyo badan oo markaas maaragtay la isku keenay kuwaasoona samaynayo marka kuwaasoona marka maaragtay samaynayo shabakad oo mid ah oo dhammaan aaladahaas marka maaragtay waxay awood u leeyihiin marka
alaal markii shabakadaas ay iskugu imaadaan inay marka maaragtay data transfer ay sameeyaan oo dhaxdooda ah marka intaas marka waxaan ku soo koobaa waa the history of the maaragtay taariikhdeena oo ahayd network-ga intaa way ka dheertahay laakiin waxaan sameeyey marka maaragtay as a summary ahaana usoo dulmarnay marka insha allah marka waxaan gelaynaa waa qodobkeena labaad oo ahaa marka waa definition of the computer network marka insha allah network maxaa la yiraahdaa computer network maxaa la yiraahdaa computer network marka waxaan dhihi karnaa waa labo computer ama laba aaladood ama in ka badan kuwaasoona si wada jir ahaan iskugu xiran marka qaabkay iskugu xiran yihiin marka waxay iskugu xirnaa karaan iyadoo la isticmaalayo fiilo marka iyadoo la isticmaalayo marka maaragtay wireless iyadoo la isticmaalayo internetka marka all these marka waa maxay waxaan dhihi karnaa waa computer network marka computer network waa maxay waa koox computer ah oo si wada jir ahaan iskugu xiran ujeedka ay iskugu xiran yihiin marka maxay tahay inay wadaagaan resources marka resources ay wadaagayaan marka waa maxay just wax kale ma aha waa data sharing marka waa file transfer sidoo kalena resources la wadaagayna marka maxaa kamid ah waxaa kamid noqon kara marka waa qalabka caadiga la isticmaalayo sida printerka iyo scanka kamid ah marka waayo network ujeedka laga leeyahay marka maxay tahay network ujeedka laga leeyahay marka wax kale ma aha waa in la yareeyo qalabkii tirada badnaa oo shaqaalaha marka oo shaqaalaha qof walbana marka maaragtay si gaar ah ugu baahnaa marka waayo haddii network aan la helin sida caadiga maxaa dhacayo marka waxaa dhacayo xafiis walbo qof walbo shaqaale ah in markaas maaragtay loo helo qalab asiga ku filan sida printer in loo helo sida scan in loo helo sida waa dhammaan aaladihii markaas asiga u baahnaa si gaar ah marka maaragtay in oo marka maaragtay desktop-ka workstation-ka si oo isticmaalayo looga xiro marka laakiin network haddii la helo maxaa dhacayo marka network haddii la helo marka waa qalabkaas tirada badnaa oo shaqaalo walbo sida gaarka ah marka maaragtay workstation-kiisa oo ku isticmaalayay waa minimize oo ku dhacayo marka waayo qarashkii tirada badnaa oo ka baxay company-ga xataa uu sii yaraana waayo waxaa laga yaabaa xafiiskiiba marka maaragtay xafiiskiiba in hal printer iyo laba scan oo kale inay iska isticmaalaan maybe waayo marka maaragtay waxaan dhahnay network-ga faa'iidooyinka uu leeyahay marka waxay tahay wuxuu yareynaan dhahnay qalabka tirada badnaa oo markaas organization-ka mar walbaba maaragtay useradiisa uu soo iibinayo marka haddii network la haysto marka qalabkii oo marka private network oo ku isticmaalayo organization-ka wuxuu noqonaa marka mid centralized ah oo dhammaan shaqaalaha ka wada dhaxeeyo iyadoo markaas loo eegayo local area network marka marka intaa kadib waxaa muhiim ah marka inaan fahanno network maxaa la yiraahdaa network-na marka maxaa la yiraahdaa marka network-na marka wax kale ma aha waxaan dhihi karnaa waa interconnection of devices marka waa maxay marka interconnection of devices marka waa aalado oo si wada jir ahaan marka maaragtay ama waa qalab si wada jir ahaan marka iskugu xiran marka okay what about the networking networking wax kale ma waa communication-ka ka dhaxeeyo aaladahaas waa aan ku magacaabi karnaa networking marka waa example bal aan aragno network-ga marka maxaan soo dhahnay waxaan soo dhahnay waa koox computer ah oo si wada jir ahaan iskugu xiran ujeedka iskugu xiran yihiin marka maxay tahay inay wadaagaan resources marka sida data sharing inay sameeyaan sida marka maaragtay xafiiskii oo kale oo qalabkii yaalay inay wadaagaan marka tusaalahan halkaan noogu muuqdo wuxuu noo caddaynaa marka what is the network marka waayo halkaan 4 computer aan taalo 4 computer marka waxay ku xiran yihiin hal aalad la yiraahdo hub
hab maxaa la yiraahdaa way noo soo socotaa marka insha Allah later arkeena laakiin ugu habka inuu yahay aalad loo isticmaalo communication link marka sidoo kale halkaana marka waxaa noo yaalo afar computer kale waxay ku xiran yihiin aalad kale oo la yiraahdo switch marka switch maxaa la yiraahdaa switch qaabku u shaqeeya insha Allah marka uu noo soo socdaa marka qeybaha horan ku arki doonaa hadii la hidmo marka labadan marka ma aragtay local area network waayo hadda waxaan haysanaa laba local area network aan haysanaa marka this is network and this is another network marka waayo network waxaan ku sheegnayba koox computer ah oo si wada jir ahaan isku xiran ujeedka isku xiran yihiin marka waxay tahay inay wadaagaan resources marka okay marka waxaa loo baahdayba labadii local area network in la isku xiro waxaa isku xiraaya marka aalad la yiraahdo router marka waayo waxay u baahan yihiin aaladan ana marka waxay fududeynay ama shaqadeeda marka waxay tahay inay isku xirto laba network oo markaas ma aragtay oo different ah marka way noo soo socotaa what is the actually networkida different ah oo aaladan isku xirayso maxay tahay marka waayo network hadda waxaan ku soo sheegnay computer network koox computer aan ku soo sheegnay haddana waxaan dhahnay routerka wuxuu isku xiri doonaa laba network oo isku xiri doonaa labadii networkna marka waa maxay waa network different ah maxaa laga wadaa marka wax kale ma aha waa network ID-ga different ah IP address la isticmaalayo marka waayo computerada waxay marka ma aragtay ku wada xiriiraan wax la yiraahdo IP address marka IP address kaasi marka ma aragtay computer walba computerka kale oo ku aqoonsanaa sida caadiga ah marka therefore marka router kana shaqadiisa marka maxay tahay waayo IP address-ka wuxuu ka kooban yahay laba qayb insha Allah marka qaybaha horaan ku arkayna marka IP address maxaa la yiraahdaa qaabku u shaqeeya IP address-ka marka waxaa loo kala qaadaa afar god oo ka kooban yahay sida caadiga ah markaan joogno IPv4 marka IPv4 markaan joogno afar god oo ka kooban yahay afartii god marka waxaa loo kala qaadaa formatka sida caadiga ah laba qayb marka qayb waxaa la yiraahdaa network ID qaybna waxaa la yiraahdaa host ID marka qaybta la yiraahdo network ID-ga waxaa loogu talagalay marka waa communication link marka inay samayso qaybta hostigana waa maxay waa computeradii loogu talagalay in markaas ma aragtay la siiyo marka insha Allah barka conceptiga oo IP address-ka oo noo soo socda laakiin routerka waxaan dhahnay waa aaladaas shaqadeeda marka waxay tahay waxay isku xiraysaa laba network oo different ah means maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa aaladaha oo local area network 1 iyo sidoo kale local area network 2 networkyadooda kala duwan marka si marka labada network la isku xiro waxaa loo baahday marka router ama ahaan xarumihii way kala fog yihiinba xarumaha ay kala fog yihiin marka waxaa loo baahan yahay marka router loo baahan yahay marka and this is one example marka waxaan dhihi karnaa of the network marka what about the networking marka wax kale ma aha waa communication linkiga oo u dhaxeeya aaladahaas marka aan dhihi karnaa networking marka insha Allah marka waa example kana just waxa waaye waa extra example oo markaas ma aragtay aan ku soo daray materialka dilaaymo si loo fahmo marka what is the actual computer network marka laakiin tusaalooyinka caadiga ah sida caadiga ah waxay ka kooban yihiin waxay ka koobnaan doonaan waa tusaalooyinka marka aan ka soo qaatay buuga oo technology insha Allah in yarna way ku jiraan oo tusaale yar ah oo la sameeyay oo loogu talagalay marka ardayga inuu markaas si qoto dheer leh oo u fahmo marka ma aragtay qodobka markaas laga hadlaayo marka marka waxaan ka soo sheekaynay ardayay wax la yiraahdo network computer network hal yiraahdo computer network marka qaabku u shaqeeya sidoo kalena laba local area network haddii loo baahdo inay isku xirmaan maxaa marka ma aragtay communication linkigooda u fududeynayo marka intaas aan soo aragnay bal haddana aan aragno maxaa la yiraahdaa ama ma aragtay faa'iidooyinka uu leeyahay network maxay tahay marka just waa faa'iidooyinka network uu leeyahay sida hore in yar aan ka soo sheegayba lama soo koobi karo
waayo waxaan dhihi karnaa faa'iidooyinka uu leeyahay network waxaa ka mid ah waa share the information marka warbixintii marka maaragtay noo share garaynaa marka iyadoo marka maaragtay la isticmaalayo communication channel sida communication channelsna marka maxaa ka mid ah marka isku jiraan marka emailka ka mid ah instant messaging ka mid ah iyo marka maaragtay other applications oo la isticmaalayo marka sidoo kalena marka maxaa ka mid ah faa'iidooyinka uu leeyahay network dhammaan kombiyuutarada waxay marka maaragtay isticmaali karaan adeegyo isku mid ah marka waxaa laga wadaa adeegyada isku midka ah marka sida feelal oo marka maaragtay ay yaalaan qayb la yiraahdo FTP oo kale ama dhammaan kombiyuutaradii oo xafiiskii noo yaalay dhammaantoodaba waxay isticmaali karaan hal printer ama labo printer oo noo yaalo xafiiska marka maybe waa qolka waxaa ka shaqeynaa 20 shaqaale ka shaqeynayso waxaan noo yaalo labo printer labadii printer marka waxaan ka dhignay printer markaas ku xiran networkeena marka okay marka shaqaale walba oo qolka joogo ama xafiiskaas ka shaqeynayo muxuu u leeyahay marka haddii daawacada u baahdo inuu markaas maaragtay printerkaas uu isticmaalo marka waayo printerku wuxuu ku xiran yahay networkii uu ku xiran yahay marka si toos ah computerkiisa kuma xirno laakiin networkii uu ku xiran yahay therefore marka networkii marka wuxuu u sahlaa in marka maaragtay userkaas printerkaas uu isticmaalo lana wadaago oo sida marka maaragtay userada kale ay u isticmaalayaan oo u isticmaalo marka waayo dhammaantoodaba waxay ku xiran yihiin waa private network oo la yiraahdo marka maaragtay local area network marka okay sidoo kalena network faa'iidooyinka uu leeyahay waa maxay within the organization haddaan ka hadalno marka faa'iidooyinka uu leeyahay marka wax kale ma aha dhammaan deetida ama feelasha oo laga isticmaalayo marka maaragtay private networkgaas in loo sameeyo qayb la yiraahdo wax la yiraahdo FTP server marka FTP server in loo sameeyo FTP serverkaasna shaqadiisa marka maxay noqonayaan marka inuu heeyo deetidii marka maaragtay shaqaalaha oo documentationka ama daily ay u baahnaayeen marka shaqaalaha marka qaabkee marka maaragtay oo ku access garay karaa oo ku heli karaa deetidaas marka wuxuu marka maaragtay ku access garay karaa asoo u maraayo ama marka maaragtay IP addresska marka maaragtay ku gali karo ama ahaan FTP-ga haddii markaas maaragtay some link loo sameeyay oo network adminka uu sameeyay linkigaas marka maaragtay ka raaci karo oo username iyo passwordna asoo authentication isticmaalayo deetidiisa marka maaragtay halkaas uu kala soo bixi karo marka marka faa'iidooyinka uu leeyahay networka lama soo koobi karo marka haddaan soo koobno waxaan leenahay marka networka faa'iido ugu weyn uu leeyahay wax kale ma aha organizationkana marka shaqada kombiyuutarada oo private network ay ku isticmaalayeen in markaas maaragtay data sharing ay helaan haddii marka organizationka uu lahaa xarumo badan oo sida xarumahaasna marka ay kala fog yihiin sida marka maaragtay degmo ka degmo iyo wixii la mid ah organizationka haddii marka geographical area locationkiisa uu yahay in marka maaragtay kombiyuutaradaas dhammaantoodaba adeegyadii oo organizationka marka maaragtay oo centerka u ahaa inay isla wada isticmaalaan marka oo that means marka maxaa laga wadaa waa data sharing in markaas maaragtay dhammaan kombiyuutaradii ay helaan marka marka waxaan ka soo hadalnay faa'iidada uu leeyahay networka marka waa benefits of the network aan ka soo hadalnay insha Allah marka haddana waxaan galaynaa typeska uu leeyahay networka marka noocyinka network uu leeyahay marka waxa ugu horeeyo marka local area network nooca labaadna marka oo computer network typeskiisana marka waxaan dhihi karnaa waa personal area network iyo sidoo kale metropolitan area network iyo sidoo kale wide area network networka sida basica oo asaaska ah ilaa iyo marka maaragtay qeybahana loo qeybiyaa marka waxaan marka maaragtay aan u arkaynaa insha Allah halaalan u arkaynaa marka laakiin ogow every organization every business hadduu rabo marka maaragtay network inuu helo waa inuu marka maaragtay qeybahan uu maro marka
وorganization كإنه ليه local area network organization كإنه ليه personal area network organization كإنه ليه مid كمدا metropolitan area network أما wide area network مركا marka labadan marka waxay ku xiran tahay baahida organization-ka ay ku xiran tahay marka mid alaala midkii markaas maaragtay asiga uu doorto marka waxayna ku xiran yihiin xarumaha halka ay ku yaalaan ay ku xiran yihiin marka iyadoo loo fiirinayo xarumaha meeqa kilometer ay isku jiraan marka insha Allah marka waan arkaynaa local area network-ga waan ka hadli doonaa insha Allah iyo sidoo kale local area network-ga marka maaragtay geographical area location-ka oo markaas maaragtay laga isticmaali karo meeqa kilometer oo gaara local area network-ga haddii loo baahdo in la balaariyo marka sidoo kale waxaan ka hadlaynaa meeqa kilometer oo gaari doonaa marka maaragtay metropolitan area network iyo sidoo kale wide area network asna geographical area location-ka oo laga isticmaalayo insha Allah waan ka hadlaynaa dilaydmo waxaan ku hormari doonaa number 1 waa local area network LAN tusaale marka LAN ka horta waa maxay LAN maxaan dhihi karnaa waa local area network laga soo gaabiyay LAN maxaa loo isticmaalaa marka LAN marka waxaa loo isticmaalaa waa small geographical area location maxaa laga wadaa sida company-ga marka maaragtay xafiisyadiisa ama dhismaha gudihiisa in marka maaragtay uu isticmaalo local area network marka tusaale hadda jaamacadda kale aan ka dhigno jaamacadda Muqdisho kale waa kilometer 4 kale marka maaragtay local area network haddii marka aan ku base gareyno halkuu gaari karaa marka local area network sida caadiga ah wuxuu ka dhex shaqeynaa aan dhahnay within the building marka waa network within the building aan yiraahdaa means waa maxay dhismaha gudihiisa xafiisyada kala duwan oo markaas maaragtay xafiisyada kala duwan oo computerada yaalo marka waa possible dhamaantooda local area network ahaan in la isku xirxiro marka laakiin dhismahaas banaankiisa oo KM4 marka maaragtay macquul ma aha in marka local area network-gi oo marka maaragtay aan dhahno haddii xarun kale ay sii jirto oo u jirto marka intaas oo kilometer oo kale loo baahdo in lagu xiro xaruntaas marka inaan dhahno local area network-gi halkaas aan gaarsiinayna marka waayo local area network marka kilometerka asiga markaas maaragtay loo isticmaali karo meeqo waayo marka waa ilaa iyo 1 kilometer loo isticmaali karaa local area network marka ilaa 1 kilometer computerada halkaas ay yaalaan marka waa possible in markaas maaragtay la isku xiro iyadoo la isticmaalayo marka fiber optic ama fiilooyinka kale oo marka maaragtay network loo isticmaalo marka 1 kilometer wixii ka bato marka muxuu noqonaa marka wuxuu noqonaa marka waa nooc labaad oo noqonaa insha Allah oo noo soo socdaa marka local area network maxaa loogu talagalay sida caadiga ah marka local area network waa maxay asiga horta waa network markaas maaragtay waa limited area oo xadidan yahay waayo geographical area location-ka laga isticmaalayo waxaan dhahnay meeqaan dhahnay waa 1 kilometer waa 1 kilometer waayaan dhahnay halkaas kilometerna marka gudihiisa maybe hadduu yahay marka school 1 kilometer ah oo ku fadhiyo kale yes it is possible waa macquul marka ama laboratory ama residence ama jaamacad oo markaas 1 kilometer ay ku fidiso kale waa macquul marka laakiin ogow jaamacadda naftirkeeda hadday 1 kilometer ay ka weyn tahay baaxadeeda local area network marka dhismahaas gudihiisa kamba siday ku yaalaan loo isticmaali karaa waa su'aal marka loo isticmaali karaa yes waa la isku xiri karaa laakiin maxaa dhacayo 1 kilometer network hadduu dhaafo network marka 1 kilometer hadduu dhaafo maxaa dhacayo network 1 kilometer hadduu dhaafo waxaa dhacayo ogow real time ka markii la joogo computerada ama serverada ama computerada client systems-ka ay isticmaalayaan shaqaalaha dhammaan computeradaas hadday yihiin kuwa member server kuwa DHCP server kuwa FTP dhammaantooda waxay ku jiraan wax la yiraahdo ama waxa la isticmaalaa wax la yiraahdo communication link la yiraahdo site marka
site kana marka waa maxay waa location marka loogu talgalay dhammaan serverada oo organization-ka local area network-yada kala duwan in halkaas la dhigo marka waa halkaas loo dhigaa marka si loo helo replication-ka waa maxay marka si loo helo backup marka daily backup si loo helo marka na marka maaragtay site-kiina waa haysanaa marka company-giina site oo isticmaalayba intaas marka site-kan ku soo kooba site oo isticmaalay maxaa dhacayo marka building wuxuu ka kooban yahay 1 kilometer in ka badan waxaa dhacayo marka bandwidth-kiisa si yaraanayo backup-kiina marka maaragtay xilligii loogu talagalay ma dhacayo marka waa culays badan ay imaanayo data transfer la sameeyna hadii la yiraahdo maybe data distribution-kana marka xilliga loogu talagalay inaysan gaarin marka marka network waxa ku imaanayo culays badan ku imaanayo waayo LAN-ka sida caadiga ah marka waxaan dhahnay waa geographical area location-ka loogu talagalay waa maxay waa 1 kilometer marka 1 kilometer wixii ka bato marka insha Allah nooc kala jiro oo loogu talagalay oo noo soo socdo sidoo kalena marka LAN-ka markaan ka hadlayno laba nooc marka oo subcategory ah oo kala qaadi karnaa sida marka maxaa kamid ah waxaa kamid ah peer to peer iyo client server kamid ah marka peer to peer waa maxay marka insha Allah bal waan arkeynaa inoo soo socda laakiin marka peer to peer iyo client server ka intaanan galin LAN-ka sida caadiga tusaalaha goordhaweed aan sheegayno oo kale waxaan dhahnay waa KM4 oo kale marka maaragtay campus-ku ku yaalo jaamacadda Muqdisho LAN-ka marka waxa loogu talagalay waa dhismaha gudihiisa kombiyuutarada xafiisyada laga isticmaalayo in marka maaragtay communication link uu sameeyo marka oo loo isticmaali karo marka waayo dhismaha banaankiisa local area network marka maaragtay macquul ma aha inuu marka another building loo isticmaalo marka laakiin ogow taasina marka waxaan ku soo koobnayba local area network marka waxaan dhahnay wuxuu gaaraa destination-kiisa wuxuu gaaraa marka maaragtay baaxadiisa ilaa iyo 1 kilometer uu gaaraa aan dhahnay marka okay marka aan ka hadalno qeybaha marka subcategory-ga uu leeyahay local area network marka sida waa peer to peer network uu leeyahay aan dhahnay Soomaa peer to peer marka waa maxay peer to peer marka wax kale ma aha waxaan dhihi karnaa waa kombiyuutaro oo si toos isku xiran marka iyadoona marka maaragtay aan la isticmaalin wax la yiraahdo network device marka isna marka waxa la yiraahdaa peer to peer network marka peer to peer sida caadiga ah hadda halkaan waxaan ugu qoran marka waa maxay waa kombiyuutaro ama waa aaladahaas waa maxay sida picture-ka halkaan noogu muuqdo kale aaladahan waa si toos ah isku xiran yihiin mujeedin waa aalado dhamaantooda waa maxay waa client ama waxay noqon karaan client oo ku xiran server marka client-iga waa maxay marka what is the client client-iga marka maxaan dhihi karnaa marka client-iga wax kale ma aha waa aalad ama waa computer-kaasoo marka maaragtay mar walbaba oo u baahan yahay inuu markaas maaragtay jawaabo uu ka helo computer-ka kale asi uu ku xiran yahay oo ah server-ka marka isna marka waxaan dhihi karnaa waa client machine aan dhihi karnaa marka marka dhammaan aaladahan waa aalado marka maaragtay clients ah oo loogu talagalay shaqaale inay isticmaalaan marka communication link-iga marka maralaala peer to peer waxaan dhihi karnaa markay computerada si toos ah isku xiran yihiin mujeedin hadda labadan computer marka way isku xiran yihiin si toos ah isku xiran yihiin iyadoo la isticmaalay RJ45 cable sidoo kalena si wareegay isku xiran yihiin sidoo kalena marka way isku xiran yihiin marka maaragtay wareegna isku xiran yihiin qaab kale oo marka maaragtay computer walba computer-ka kale oo marka maaragtay dariskiisa uu ku xiran yahay marka isna marka network waxaan dhihi karnaa waa peer to peer network waayo aan dhahnay peer to peer network waayo lama isticmaalin network device aalad network ah oo centralized ah oo dhammaan computeradii marka maaragtay communication link ay u sameynayso lama isticmaalin marka
كمبيوتر dhammaantooda marka waxa la isku xiray iyadoo la isticmaalay fiilo marka daasna marka waxaan dhigi karnaa marka waa peer to peer waa maxay waa laba computer ama in ka badan oo kuwaas oo marka wada jiraan isku xiran iyadoona marka aanan la isticmaalin network device marka this is marka waxaan dhigi karnaa waa peer to peer network aan dhigi karnaa marka sidoo kale nooca labaad oo hoos imaanaya local area network waa maxay waxaan dhigi karnaa waa client server marka client server kana marka maxaan dhigi karnaa marka what is the client server client server kana marka wax kale ma aha asna marka waa hal aalad ama in ka badan oo system ah marka kuwaas oo u dhaqmaya as a server marka waayo serverka sida caadiga shaqadiisa marka maxay tahay waa the center of the systems marka xalagooda marka waayo serverka asaa mas'uulka ah inuu manage gareeyo ama maaragtay oo ka jawaabo codsiyada markaas uu ka imaanayo computerada client-iga ah isna marka waxaan dhigi karnaa server bal aan ku celiyo arday server marka maxaan dhigi karnaa serverna marka wax kale ma aha waa computerkaas shaqadiisa marka maxay tahay wuxuu ka jawaabaa codsiyada uu imaado client machines marka kaliya ma dhihi karno client computer marka waayo waxa laga yaabaa serverka inuu ku xirmo telefoonada caadiga aan isticmaalno marka ama aaladaha kale oo iPad inaan marka anagoo isticmaalayno serverka inaan ku xirno marka wuxuu mas'uul ka yahay marka waxaan dhihi karnaa dhammaan codsiyada markaas uu ugu imaanayo client machines marka inuu aqbalo kadibna codsiyadooda marka maaragtay oo ka jawaabo marka tusaale halkaan nooga muuqdo ardayay waa tusaalaha buugga oo markaas maaragtay oo noogu qorana sida hadda marka waxa isku xiran hal computer oo server ah ama hal serverkaasna marka muxuu ku xiran yahay waa ilaa iyo dhowr marka maaragtay aaladaha ku xiran sida mujeedin hadda smartphone oo kale sida laptop oo kale sida computer kale oo ah all in one oo kale oo desktop workstation oo kale marka serverka ma dhihi karno un kaliya wuxuu ka jawaabaa codsiyada ugu imaado computerada serverka wuxuu ka jawaabaa codsiyada ugu imaado client machines marka client machines marka dhowr nooc isku jiri karaan operating systemyadooda way kala duwanaan karaan marka shaqadiisa marka serverka waxay tahay inuu aqbalo codsiyadooda oo markaas maaragtay jawaabna uu siiyo marka marka faa'iidooyinka uu leeyahay local area network balaan imaan waxaan ka hadlaynay maanta oo dhan local area network sidoo kale waxaan ka soo hadalnay labada nooc oo uu leeyahay local area network anagoon u fiirinay marka waa peer to peer network iyo sidoo kale client serverna aan ka soo hadalnay marka client maxaa la yiraahdaa server maxaa la yiraahdaa client server isku dhafahna maxaa la yiraahdaa marka insha Allah marka waxaan galeynaa faa'iido uu leeyahay marka maaragtay local area network marka local area network marka maxaan dhihi karnaa faa'iido uu leeyahay waayo waxyaabo badan hadda aan ka soo sheekaynay waxaan dhihi karnaa marka local area network wuxuu fududeynaa userada marka si wada jir ahaan inay isla shaqeeyaan waayo waxaan dhahnay local area network halkuu ka shaqeynaa marka local area network wuxuu ka dhex shaqeynaa ismaha gudihiisa dhahnay marka ismaha gudihiisa marka waa shaqaale badan ay joogaan kuwana marka waa isku shaqo kuwana marka waa shaqadooda waa kala shaqo marka dhammaantooda marka waxay isku xiran yihiin ama waxay ku xiran yihiin aalado la yiraahdo marka switch ay ku xirmi karaan waxay ku xirmi karaan marka aalado la yiraahdo switch ay ku xirmi karaan marka therefore marka local area network haday haystaan waxa dhacayo waa inay isla marka maaragtay isla xiriiraan oo ay fududahay sidoo kalena adeegyada markaas maaragtay organization-ka uu leeyahay inay wadaagaan marka waa iska fududahay marka sidoo kalena waxyaabaha la heli karo waa maxay inay share gareeyaan data-dii marka si marka sare loogu qaado marka maaragtay si sare loogu qaado marka
adeegyadii iyo waxyaabaha marka oo private marka maaragtay organization-ka oo laga isticmaalayo marka maybe waa private organization waxa laga isticmaali karaa waxaa jiro some department walba wuxuu lahaa karaa marka system asiga u gaar ah oo lahaa karaa marka aan loo baahnayn departmentyada kale inay soo access gareeyaan computer-dooda marka waxaa jiro marka there is some marka maaragtay adeegyaa jiro oo loo isticmaalayo marka switchka marka la joogo oo shaqooyinkaas marka maaragtay lagu kala xadidayo marka sidoo kalena faa'iidada uu leeyahay local area network waayo network markaan ka hadlayno faa'iidadiisa iyo faa'iidada uu leeyahay local area network na marka waa iska agdhow yihiin waa isku mid aan dhihi karnaa waayo network goordhoweed markaan ka soo hadlayno waxaan dhahnay faa'iidada uu leeyahay network marka wax kale ma aha waa in markaas maaragtay shaqaalaha hardware-kii ama qalabkii tirada badnaa oo user walba marka maaragtay u baahnaa in marka minimize uu ku dhaco marka waayo haddiiba network la helo maxaan dhahnay waa aaladihiina marka waa maxay looma baahno shaqaalo walba aaladihiisa marka in loo soo dhamaystiro marka xafiis walba waxaa ku filnaanayo laba aaladoo centralized loo samaynayo marka oo dhammaan shaqaalaha xafiiskaas jooga ay isticmaali karaan marka therefore local area network markaan ka hadlaynana waa maxay waxaan dhihi karnaa sharing networked hardware can reduce the cost maxaa laga wadaa marka waxaa laga wadaa waa kombiyuutarada oo xafiiska noo yaal haddii dhammaantoodaba marka maaragtay network ay ku xiran yihiin waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan barwaaqo gaarane